daawadayaal ku soo dhawaada wararkii Warshiil TV qodobada ugu doorka roon warkeenana waxaa kamid ah waxa magaalada Muqdisho ka furmay maanta shir caalami ah oo ay ka qayb galayaan in ka badan 50 dal iyo ururo caalami ah shir xasaasi ah oo isna ka socda magaalada Muqdisho iyo isbahaysi cusub oo ay ku dhawaaqayaan xisbiyada siyaasadda ee Soomaaliya Axmed Madoobe oo qarka u saaran kacdoon ciidan oo laga abaabulayo deegaankiisa wasaaradda maaliyadda ee Soomaaliya oo bilowday inay mushaharka ka joojiso ama ay ka jarto shaqaalaha ku meel gaarka dowladda federaalka ee Soomaaliya oo baasaboorkii diblomaasiga kala noqotay xubno ay ka mid yihiin Axmed Madoobe oo ka soo jeeda Jubbaland taliska booliska ee Soomaaliya oo codsi u diray shacabka ku nool magaalada Muqdisho daawadayaal kuwaasi waa qodobada warkeena ugu doorka roon haatana waxaa ku soo dhawaataan warkaasi oo dhameystiran waxaa maanta magaalada Muqdisho ka furmay shirka iskaashiga caalamiga ee Soomaaliya kaasi oo ay ka qayb galayaan in ka badan wakiilada 50 wadan kuwaasi oo daneeya arrimaha Soomaaliya sidoo kale shirka waxaa ka qayb galaya qaar kamid ah madaxda maamul goboleedyada iyo wakiilada bulshada rayidka shirweynahani oo uu furay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Mahdi Maxamed Guuleed isla markaana uu ka soo jeediyay khudbad ayaa waxa uu kaga hadlay horumarka ka jira Soomaaliya gaar ahaan guulaha ay dawladdu ka gaadhay ammaanka dhaqaalaha iyo sidoo oo kale la dagaalanka musuqmaasuqa ra'iisul wasaare ku-xigeenka Soomaaliya ayaa sidoo kale shirka ka sheegay in dawladda federaalka ay diyaarisay shuruucdii doorashooyinka oo hor yaalla baarlamaanka isla markaana ay doorashadu noqon doonto mid dadweyne shirkan oo la filayay inuu magaalada Muqdisho ka socdo muddo 2 maalmood ah ayaa waxa aan ka qayb galahayn ilaa iyo hadda maamul goboleedyada Jubbaland iyo Puntland oo khilaaf siyaasadeed xilligan kala dhaxeeya dawladda federaalka ee Soomaaliya 2 maalmood uu shirkani socdo ayaa waxa diiradda lagu saari doonaa waxyaabihii ka hirgalay qodobadii la isku afkartay shirkii kan ka horeeyay ee lagu qabtay magaalada Brussels ee dalka Belgium waxyaabaha sida gaarka isha loogu hayana waxa kamid ah arrimaha amniga dhaqaalaha siyaasadda iyo bulshada shirkan oo ay tahay maalintiisii koowaad ayaa ilaa iyo hadda la xaqiijiyay shir xasaasi ah ayaa hadda waxa uu ka socdaa magaalada Muqdisho shirkan oo ka dhacaya guriga madaxweynihii hore ee Sheekh Shariif Sheekh Axmed isla markaana ah gudoomiyaha xisbiga Himilo Qaran ayaa waxa ka qayb galaya badi mucaaridka Soomaaliya shirkani waxa sidoo kale goobjoog ka madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo dhammaan gudoomiyayaasha xisbiyada siyaasadda ee ugu miisaanka culus dalka shirkani ayaa qayb ka shirar 3 maalmood ee u dambeeyay ka socday magaalada Muqdisho oo yeelanayeen qaar ka tirsan madaxdii hore ee dalka hore u soo martay iyo xisbiyada siyaasadda ee Soomaaliya madaxda kulamadaasi ay u socdaan ayaa isku raacay in la dhisay isbahaysi siyaasadeed ama kudlad siyaasadeed oo ay ku mideysan yihiin xisbiyada siyaasadeed kaasi oo la filayo in lagu dhawaaqo goordhow xisbiyada kulamadaasi ku midoobay ayaa kala ah xisbiyada wadajir Himilo Qaran UPD ilays iyo kuwa kale waxaana la filayaa inay bayaan wadajir ah ka soo saaraan gabagabada shirkaasi midowga xisbiyadana ayaa waxa uu muuqdaa inuu yahay mid loogu diyaar garoobayo doorashada la filayo inay Soomaaliya ka dhacdo sanadka 2021 warar lagu kalsoon yahay oo aanu ka helayno magaalada Kismaayo ayaa waxa ay sheegayaan in hogaamiyaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaan Axmed Madoobe uu qarka u saaran yahay kacdoon ciidan oo ka dhana maamulkiisa kooxdii labaad oo ka tirsan ciidamada gaarka u tababaran ee Jubbaland ayaa sameeyay amar diido ballaaran amar diidadaasi oo ku saabsaneed amar ka soo baxay madaxtooyada magaalada Kismaayo ee maamulka Jubbaland ciidamadan amar diidada sameeyay ayaa lagu amray inay soo qabtaan ciidan ku dhow 60 askari oo ka godooday Jubbaland kuwaasi oo la wareegay deegaano kamid ah gobolka Jubbada Hoose sidoo kale waxaa jira warar sheegaya in dawladda Soomaaliya ay dhex gashay ciidamada Jubbaland isla markaana laga cabsi qabo in maamulkaasi uu waajaho kacdoon ciidan oo talada looga tuuray Axmed Madoobe lama oga sida uu xaalku ku dambeyn doono heese yeeshee waxa taagan walaac laga qabo kacdoon ciidan oo ka bilowda Kismaayo iyo deegaanada kale dawladda Soomaaliya ayaa dagaal toos ah iyo mid dadbanba ku haysa Axmed Madoobe iyadoo oo rabta inay ka tuurto awoodda maamulka Jubbaland isla markaana ay ku bedesho qof la jaan qaadi kara habka federaalka ee ka hirgalay Soomaaliya dawladda Soomaaliya ayaa baasaboorkii diblomaasiga ahaa kala noqotay mas'uuliyiin uu ka mid yahay madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Madoobe mas'uuliyiinta ay dawladdu
ka kansashay ama ay kala noqotay ee Jubbaland ayaa waxaa ku jira wasiiro, xildhibaano iyo xubno kale oo xidhiidh dhow la lahaa Axmed Madoobe. tirada xubnaha baasaboorka lagala noqday ayaa lagu soo warramayaa inay gaadhayaan 8 mas'uul. Tallaabadan oo ka mid ah waxyaabaha ay dowladda federaalk ee Soomaaliya ku cadaadinayso maamulka Axmed Madoobe ayaa si xawli ah u socota tan iyo markii ay dowladdu ay amarro ku soo xayiraad ku soo rogtay magaalada Kismaayo. xiriirka dowladda dhexe iyo maamulka Jubbaland ayaa xumaaday kadib markii uu Axmed Madoobe magaalada Kismaayo ku qabsaday doorasho aanay raalli ka ahayn dowladda dhexe ee Soomaaliya. tan iyo markii uu khilaafka labada dhinac bilowday, dowladda dhexe ayaa qaaday dhowr tallaabo oo ay ku cadaadinayso maamulkaasi. tallaabooyinka ay qaaday ayaa waxaa ka mid ahaa in la joojiyey duulimaadyadii tooska u tagi jiray magaalada Kismaayo iyo weliba in lagu soo rogay xayiraad socotay muddo 3 maalmood. sidoo kale waxaa la xiray wasiirkii amniga dowlad goboleedka Jubbaland Cabdirashiid Janan oo hadda muddo bila ku xidhan magaalada Muqdisho. cadaadiska dowladda ayaa sababay inay baaqato xafladda caleemasaarka ee Axmed Madoobe uu ku qabsan lahaa magaalada Kismaayo kadib markii ay dowladdu xayirtay madaxdii ka qaybgeli lahayd xafladdaasi oo uu ka mid ahaa madaxweynihii hore ee Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed. ciidamada booliska ee magaalada Muqdisho ayaa xiray qaar badan oo ka mid ah wadooyinka muhiimka ee magaalada Muqdisho, waxaana wadooyinka qaar lagu daadiyay ciidamo badan oo ammaanka ah. wadooyinka muhiimka ee magaalada Muqdisho qaarkood, gaar ahaan laamiga Maka al-Mukarrama, ayaa loo diiday inay isticmaalaan gaadiidka dadweynuhu, waxaana wadooyinkaasi maraya gaadiidka ciidanka oo kaliya iyo weliba kuwa wada mas'uuliyiinta dowladda. taliye ku-xigeenka ciidanka booliska Soomaaliya Generaal Sakiya Xuseen ayaa sheegtay in wadooyinka la xiray ay sababtay shirka caalamiga ee ka furmay maanta magaalada Muqdisho, waxaanay shacabka ka codsadeen inay dulqaad muujiyaan. shacabka gobolka Banaadir waxaan si sharaf leh uga codsanaynaa inay u dulqaataan inta uu shirku socdo. wadooyinka xiran ee magaalada Muqdisho ay kow ka tahay wadada Maka al-Mukarrama. haddii aad u baahataan gurmad caafimaad, waa inaad si degdega u wacdaan lambarka gurmadka degdega ah, ayay tiri taliye ku-xigeenka ciidanka booliska Soomaaliyeed ee Sakiya. shacabka magaalada Muqdisho ayaa la qabsaday xirnaanshiyaha wadooyinka muhiimka ah, waxaana hore dowladdu dhagaxaan ugu xidhay qaar ka mid ah wadooyinka Muqdisho, halka sidoo kalena kaantaroolada laga celiyo inay gaadiidku ka gudbaan wakhtiyada qaar. daawadayaal, intaasi ayaanu ku soo afmeeraynaa warkii Warshiil TV. tan iyo intaynu ku kulmi doono warkan xiga, waxaanu idinkaga tegaynaa. assalaamu calaykum.